waxayna igu hanjabeen haddaa afkaada kala qaado Nairobi nabad dambe inaad ku mareynin, Nairobi nabad baa ku joogaynin. kadib heer waxay gaareen xitaa sakiinay soo qaateen xitaa gacantii halkaas inay iga sakiimiyaan. waxaa war laga bilaabay istri maxaa arrintood maxaa banaanku keentay u hadashay station kan maanta dhan joogay asxaabay horta dadka aniga sidan ii galay ee dhibkan ii galsiiyay aqara iyo adduun midna u macafinin aniga saaki station ka aadan ka imaaday maanta station ka joogay wala isbitaal Madiina isbitaalka aniga u dhahay ninkaas waan jiifaa aniga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا سلام walaalahey meel kasto adduunka joogtaan waa anigoo ah walaalkiin. maanta horta waxaan rabaa inaan idiin sheego maalmahan in muddo YouTube-ka muuqaal ma soo dhigin taas oo inaan aad u mashquulsanahay waa mashquul kale iska jiro. marka maanta tan aan rabo inaan ka hadlo waa arrin aad iska xasaasi oo ka dhex taagan social media taas oo horteedna aan arkay arrimo aad u badan laakiin aanan ka hadlin sababtoo ah waxyaabo badan oo in laga hadlo u baahnaa laakiin aanan ka hadlin jira. marka waxa waaye arrimo badan oo waxaan weligood dhicinayaa social media ka dhacay bilaha hadda aan soo dhaafnay social media waxyaabaha ka dhacay oo waxyaabo aanan hore uga dhicin baraha bulshada ee Soomaalida dadka isticmaalo baraha bulshada ee Soomaalida. marka hadda arrintan oo ugu dambeysa ha ahaato horta dadkan isticmaalo baraha bulshada qof walba markuu asaga hadlayo oo daawato asaga ayaa saxan marka qof kale aad dhageysatana asaga saxan meeshan qofka meesha joogo unba arrintan ogaan kara cidda qaldan iyo cidda saxan laakiin qoma ogaan karo qof daawaday muuqaal loo soo duubay marka laakiin anaga had kahor intaan u gudagal muuqaalka waxaan kaa codsanaa inaad channelka subscribe saarto muuqaalkan aad like saarto mahadsanid. intaas kadib ugu horeyn intaan u gudagalin bal aan isla daawano labada muuqaal ee labada gees soo kala duubeen Sakaneer. dhibaatan lii geystay ama dirdirsa u taqaanay lii geystay lagu geystay Nairobi dhexdeeda darad istari maxaa video waxay soo geliyeen oo raali gelin ah videos ay ka hadlayeen macnaha inay qadar afis ay ka wadsanayeen video wali soo dirwaan dhageystay waxaan dhaxbeenay ma qabo. kadib waxaa dhacda markay 8 saac duhurnimo ahayd ayaa maxaa soo wacay telefoon ka qabtay wuxuu yiri qadarow waxaan rabo dhahay hal idray maadaama dad isku dhacanahay haddana rag aan nahay anina kuma iimaanay waxaan rabaa dad ehelkayga ashraaf ah ayaa meesha joogaan dadkaas ayaan ku soo diraya ugu yiri la hadal la xaaltan family-ka ama ehelkaada u geyso. ninka rag aniga sabab baan isku dhaxsanaa laakiin heshiintii uu soo dhiibay ayaan qaatay sidii ayaan ku aaday meeshii. marka meeshii aan tagay 4 wiil oo dhalinyaro ah gaari bees wataan ayaa meesha ula tagay. 4 markaan ugu tagay mawliga shan gaaro liiga soo saaray samaana gaarin waxaan idhahay gaarin ka dhex qiimin kartid mana hadli kartid afkaada qabso. waan aamusay waan dareemay inaan mission ku jiro ama dhibaato ku jiro waan dareemay. halkaa wadada shintiriya laga bixiyay halkaas ay la aaday. kadib banaanka markii aan tagay waxaa dhacday gaarina laga soo dejiyay kadibna ila loo dhigdhigo wixii jilbihan ku dhigtay. waxaa war laga bilaabay istri maxaa arrintood maxaa banaanku keentay u hadashay yaaba anay horta dharbaax hore u tahay. kadib rag waa taqaanaa jirdilan lagama sheekeynayo suxun bay halaantii feeri ku bilaabeen suxun bay jirdileen kadib heer waxay gaareen xitaa sakiinay soo qaateen xitaa gacantii halkaas inay iga sakiimiyaan halkaas sakiin iga saraan iyo halkaas sakiin iga saraan samaana garanay dhibaato halkaa kuma ekeen fanaanadii qado dhiiga noqotay. السلام عليكم أصحابتك وحول يوتيوب جنرال كيغان سلام هيا أنت وناقة جعلان سلام هيا وحان ماشان نوصل فريستي أنا كمان تسان ساكو كالله إلا هاد استيشن كاك إمادي استيشن كان مانتا بنجوغي أصحابي هورتا دادك أنا كسيدان إيه غالاي أدب كان إيقرسيي أقرأ إيه أدون منو معفيني أنا كساك استيشن كا آدون كإمادي maanta station ka joogay wala isbitaal Madiina isbitaalka aniga u dhahay ninkaas waan jiifaa aniga oo shalay liisii u dhahay aniga waan tagay maxay ahayd sheegay isbitaalka waxa la igu dhahay ninkaas shalay mar buu noo imaaday xagtin yar oo sakiinaha meeshan ku taalay
wax maartay dhiig iyo wax ka soconi ma lahan daawo iyo waxaas u qornay uuna naga tagay hadday anaga noo imaadaan askar iyo waxaas noo imaadaan dad noo imaadaan anaga cadaynta waa dhiibaynaa isbitaal Madiino walaalayaalow waxaa idinka codsanayaa videoga horta shalay aan soo duubay inaan bixiyaan rabaa sababtoo ah gabar walaashii magaceeda aan ku xisaa jirto oo aan magaceeda ku sheegay inay shalay ila joogtay aniga shalay aniga maxamed ay nala joogtay oona anaga shalay aanan maartay wax dhibaato aanan samaynin marqaati ahaan aan shalay magaceeda ugu soo daraa jirto gabadhii ayada waxay tiri walaalay aniga meel baa layga soo wacay magaceyga YouTube ka bixiyay ay dhahday saasaan muuqaalkan labaad hadda inaan soo duubay igu kaliftay marka walaalayaalow waxaa idinka codsanayaa oo idinka codsanaya aniga stationka shalay waa tag riboodaan soo qortay shalay aniga stationka waa tag riboodaan soo qortay xalay markaan stationka imaad 3 saac beenimo guriga irdiisa la isoo istaagay xalay aan soo qortay riboodkana niman guriga irdkiisa ii taagana aan ugu imaaday 3 nin bay ahaayeen 2 nin waxay dileen maxamed midna aanu caloosh haraantii iga dhuftay 3 nin aniga isoo weerartay waa 3daas ninna meel kale kama socdaan qadar baa soo diray shalay wuxuu yiri waa la idilay dil been isku saadiyay isbitaal baan Allah u dhabeen u sheegay shalay gabdhaha waxay ii sheegeen isbitaalka Madiina inuu imaaday daawo loo qoro u baxay ما شيء أنا برافض مالها إنه تقول سرت أنتم مرة عاد وش صدوه سكرات كاي وح فيديو يعني تيك توك qaybta hore aan ka daawanay wiilka horta muuqaalka uu soo duubay wiilka waxa uu leeyahay macnaha waxaan u tagay in macnaha heshiis la soo sameeyo laakiin markii aan u aaday ayuu leeyahay heshiiska waa arrin afduub camal ayaa lii geystay macnaha waxaanaad arkaysaana meeshaas ay iga soo dhaceen markaan eegno xagga gabadhan waxay leedahay isbitaalkiina wax cadayn ah kama soo helin oo waxay ii sheegeen inay xagtin yar ku taalay oo haddana oo kaniiniyaal yar iska qaatay oo jiifkan iyo dhaawacan weyn ee kaamirada lagu horsameeyey uusan waxba ka jirin marka adinkaan idin weydiiya yaan aaminaa barta commentiga waxaad kusoo qortaa cidda aan aaminayn okay markaan u imaano anaga iyo sababta aan muuqaaladan aan uga hadlayna muuqaalkan maaha midka sababta aan uga hadlayna maaha muuqaalkan bes laakiin waxyaabo badan ayaa ka dhacay baraha bulshada xagga Soomaalida waxaan arkay maalin hore dad waaweyn oo aad arkaysa kaamirada isku duubay haddana aan u maleeyay inay joogaan wadamadaas iyo qurbaha oo haddana meel laami ah wada isku dagaalaya oo ay isbalansanaya arrinkaas adiga muxuu ku leeyahay bal ka waran dad waaweyn waxaas oo haddana waxa lagu jiraa 2021 maaha 1990 waa arrin runtii laga xishoodo waxay Soomaalida sanadkan ay horumar moodayso waa dib u dhac aad u weyn waana run ahaantii waxaad ku dheelaysaa sharafta ummadaada Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed oo dhan maxaa yeelay qof weyn aqligiis ma siinay iyadoo aad joogto wadama aan wadankaada ahayn wadankaada hadii ay tahay xitaa waa waxba la sheegi lahayn laakiin waxaad joogtaa wadan aan wadankaada ahayn sharafta waxaad ku dheelaysaa macnaha aqli xumada ayaa keenaysa waxaas aqli xumada taas iska haato waxay ahayn haween marka aan u soo laabano dagaalada baraha bulshada ee dadka caanka ay isku qabsanayaan anaga misdhihi karna dagaaladaas waa run laakiin horta waxaan la yaabanahay dagaal dadkan ayaga maxaa iska galay nin walba haddii uu dantiisa qabsado maxaa isu keenayo dadkan qof walba hadduu dantiisa qabsado maxaa isu keenayo waa arrin lala yaabo runtii oo qof uu kaamirada inuu soo hor istaago qofkan kale kusoo qayliyo kan kalena uu kaamirada isagana kasoo jawaabo runtii waxaan kula talinayaa in qof walba uu mawduuc u gooni qabsado uu farahana ka qaado waxyaabahan camal waa idin salaamaya walaalahayg meel kastoo adduunka joogtaan intaas ayaan rabay inaan u sheegay cid walba oo muuqaalkan daawanaysa waxaan kaa codsanay inaad sii share garayso kanaalkan haddii subscribe ku saarneen kunka wax yar ayaa ka dhiman waxaan kaa doonaynaa inaad gaarsiiso mahadsanid